إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم waxaan ku soo jirnay darsiga tafsiirka quraanka aan ku soo jirnay casharkuna maanta wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratul maa'ida tartiibka quraanka markii la fiiriyo waa suurada shanaad weey aayadaheeduna waa 120 aayadood weeyaan suuradu waa madani waxay kamid tahay quraankii madiina ku soo degay quraanku wuxuu qaybsamaa laba u qaybsamaa quraan waxa la yiraahdaa makki baa la yiraahdaa quraanna waxa la yiraahdaa madani baa la yiraahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam makal mukarrama markuu ka haajiray ee madiina almunawwara uu haajiray wixii quraan ah ee soo degay waxa la yiraahdaa madani baa la yiraahdaa intuu nabigu maka joogay wixii quraan ah ee soo degayna makki baa la yiraahdaa marka quraanka nabigu calayhi salaatu wasalaam makal mukarrama intuu ka haajiray ee madiina almunawwara uu haajiray quraanka ilaahay nabiga uu ku soo dajiyay quraankaasi waxa weeye waa madani weeyaan walow marka uu nabiga ku degayay nabigu madiina yuna joogin be ilaan quraanka in badan oo kamid ah ilaahay wuxuu nabiga ku soo dajiyay calayhi salaatu wasalaam isagoon madiina joogin ee madiina meel uga baxsan buu ilaahay quraanka ku soo dajiyay marka markuu nabigu madiina joogay uu ilaahay nabiga ku soo dajiyay iyo quraanka isagoo madiina ka baxsan nabiga ku soo degay waa wada madani waxa la wixii bacda al-hijra quraana ee soo degay baa madani la yiraahdaa
marka suuraddu qur-aankaasay ka mid tahay suuratulmaa-ida asluubkii unbay ku socotaa qur-aanka madaniga uu ku socday oo ah ilaahay inuu inoogu faahfaahiyey wixii tashriicaad iyo axkaama inuu ilaahay inoogu faahfaahiyey suuraddu nidaamka unbay ku socotaa asluubkaasay ku socotaa suuradda maa-ida waxaa loogu magacaabay qisada aakhirka suuradda inoogu iman doonta ee ereygaasi uu ku jiro ayay iyadu ka sheekayntiisa la khaas noqotay saasaa maa-ida loogu magacaabay magaca ugu mashhuursanna waa magaca wey ee suuradda lagu yaqaano magacyaalkanaa jira oo suuradda lagu yaqaano waxaa ka mid a magaca lagu magacaabo munqida suuradda magacyaalkeeda ayuu magacaasi ka mid yahay munqida waxaa loogu magacaabay maalinka qiyaamo waxay qofkii suuraddan barta ee ku camal fala waxay ka badbaadin malaa'igta cadaabka gacmahooda ayay ka badbaadinhaysaa saasaa munqida loogu magacaabay suuraddan waxaa weeye fadli ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ninka lagu magacaabo axmed iyo kayrkiisba waxay warinhayaan oo caaisha ay ka warinhayaan caaisha inay tidhi suuraddan lagu magacaabo suuratulmaa-ida waa aakhiru suuratin nasalat waa suuraddii ugu dambaysay ee qur-aanka soo degtay ee waxay tidhi caaisha wax alla wixii aad suuratulmaa-ida aad ku aragtaan ee xalaal ah xalaashaday tidhi wixii xaaraama ee aad ku aragtaanna iska xarima oo faraha ka qaada anigii wax alla wixii xalaal ah ee suuratulmaa-ida ku jirta xalaashaday tidhi wax alla wixii xaaraama ee suuratulmaa-ida ku jirana iska xarima maxaa yeelay waa aakhiru suurati nasalad bay tidhi waa suuraddii ugu dambaysay ee nabi moxamed kusoo degtay calayhi salaatu wasalaam jumlatan waaxida miyay marka nabiga kusoo degtay suuratulmaa-ida mise marar kala duwan buu ilaahay soo dejiyey labada riwaayaba way jiraan laakiin waxaa muctamada oo xoog badan suuratulmaa-ida nabiga hal mara inayna ku soo degin ee marar kala duwan ay soo degtay suuraddu bismi illaahi ilaahay magiciisaan suuradda ku bilaabaya allaha arraxmaani naxariis caam a naxariista allaha arraxiimi naxariis khaasa naxariista ayaan suuradda ku bilaabi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu xaqa rumeeyayow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada oofiya wixii ballana ee ilaahay aada la gasheen oofiya wixii ballana ee idinku dhexdiinna aada gasheenna oofiya uxillat waxaa la xalaaleeyey lakum idinka la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nicmoolayda bahiimadeedaa la idiin xalaaleeyey ilaa maa shay mooyaane ah yutlaa la akhrin doono calaykum dushiinna lagu akhrin doono hayra muxilli saydi ugaadha mid xalaashan kayrkiis xaal aad tihiin walxal antum idinkuna xurumun xaj ama cumro kuwa xarmaday aad tihiin in allaha ilaahay yaxkumu wuxuu xugminhayaa maa yuriidu waxa uu doonu ilaahay xugminhayaa alla wuxuu lahay subxaanahu wa tacaala war dadka iimaanka lahow waxaad oofisaan ballamada oofiya laba ayaa soo gelaya wixii ballana ee ilaahay aan la gallay oo ah diinta siday tahay in loogu dhaqmo way soo geli arrintaas waxaa kaloo soo geli wixii ballana ee inaku aynu wada gallay ee innaka dhexdeenna aynu dhigannayna isaguna wuu soo gelayaa waxaa marka la rabaa qofka muslimka ah ee iimaanka leh ballanta ilaahay inuu oofiyo ballanta ibnu aadamka uu la galayna inuu oofiyo ayaa la rabaa
waxaa ka mida ballamada cuquudda aynu gallay waxaa ka mida ilaahay inuu waxna inaga xarimay waxna inoo xalaaleeyey mar haddii aad iimaan leedahay waxa ilaahay uu kuu xalaaleeyey xalaasho waxa ilaahay uu kaa xarimayna iska xarim ha u dhowaanin waxaa weeye marka bahiimatul ancaam waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebay waxyaabaha aayadda soo socota ay ka hadlayso ilaa maa yutlaa calaykum waa aayadda soo socota een inagaba dheerayn waxa ay ka hadlaysa wey waxyaabahaas iyaga waa la idinka xarimay laakiin wixii kale ka soo hadhay waxyaabaha ee nicmooley ah geelii lo-dii adhigii waa la idin xalaaleeyey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu xaqa rumeeyayow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada oofiya uxillad waxaa la xalaaleeyey lakum idinka la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nicmoolayda bahiimadeeda la idiin xalaaleeyey bahiimatun hiya alancaamu saa weeye macnuhu bahiimo oo nicmoolayda ah ayaa la idiin xalaaleeyey ilaa maa shay mooyaane ah yutlaa la akrin doono calaykum dushiina lagu akrin doono gayra muxilli saydi ugaadha mid xalaashan gayrkiis xaal aad tihiin wal xaal antum idinkuna xurumun aad tihiin kuwa xarmaday xaj ama cumro anigii qofka waxaa la rabaa hadduu marba uu xaj xidho ama cumro uu xidho ugaadha inuu iska ilaaliyo oo una ugaaranin xaramka ugaadhiisana ama xaj xidho ama ha xidhanin xaramka ugaadhiisa mar walba inaad u bambaxdo dhibaato u geysato waa xaaraan iyadu lama ogola laakiin wixii xaramka ka baxsan marka aad muxrim tahay ee aad xaj xarmatay ama cumro aad xarmatay ha u dhowaanin in allaha ilaahay yaxkumu wuxuu xugminhayaa maabuu xugminhayaa yuriidu ilaahay uu doono wax alla wuxuu ilaahay doono ayuu xugmin axkaamta ilaahay uu xugmiyey ee aad aragteen marka waa inaad tixgelisaan oo sidooda aad u qaadataan yaa ayuha aladiina dulka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tuxiluu ha xalaashanina shacaa'ir allaahi shacaa'ira diin illaahi ilaahay diintiisa calaamooyinkeeda ha xalaashanina waxyaabaha diinta calaamooyinka u ah ha xalaashanin oo ha ku xadgudbina xajka iyo cumradu shacaa'ir bay leeyihiin shacaa'irta ha ku xadgudbina waxyaabaha shacaa'irta oo dhan sida adinku waa shaciiro wey iqaamadu waxaa weeye waa shaciiro wey waa shacaa'irta ilaahay waxaa weeye marka ha ku xadgudbina anigii qofka iimaan kale marka uu maqlo masaajidkoo laga adimayo waa inuu adinkaa ajiibo aqimidda markuu maqlo waa inuu ajiibo hadduu qofku isagoo adinkii maqlaya aqimiddii isagoo maqlaya hadduu iska fadhiyo waxa weeye shacaa'irta ilaahay waa ku xadgudba qofkaas markaas waa ku xadgudbay waxaa la rabaa calaamooyinka diintu ay leedahay in la tixgeliyo lagu socdo la ixtiraamo la dhowrayo bahanta arada u fiirso yaa ayuha aladiina dulka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tuxiluu ha xalaashanina oo ha ku xadgudbina shacaa'ir allaahi shacaa'ira diin illaahi ilaahay diintiisa calaamooyinkeeda ha xalaashanina wala shahra bishana ha xalaashanina bisha alxaraama xurmada leh bilaha ilaahay uu xurmada siiyey ee uu xurmeeyeyna ha xalaashaninoo xadgudub ha samaynina walalhadya hadyada beydka ilaahay loo wadana ha xalaashaninoo dhib ha ugu bambixina walalqalaa'ida hadyada waxa luqunta loogu xidhayna ha xalaashaninoo isagana iska ilaaliya hadyadana iska ilaaliya hadyada waxa luqunta loogu xidhayna iska ilaaliya iyadana
walaa aamina kuwa u qastaya ee u socda albeyta beytka alxaraama xurmada lana ha ku xadgudbina iska ilaaliya yabtaquuna xaal ay dalbayaan fadlan fadli ay dalbayaan fadligaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan raalli ahaanshaha ilaahayna ay dalbayaan wa idaa xalaltum markaad xalaalowdaan fasdaaduu ugaadhsada markaas walaa yajrimannakum yayna idinku xambaarin shana'aanu qowmin qoom xumaan aad u qabtaan iyo cadho aad u qabtaan an sadduukum inay idinka hor istaageenna aada ugu cadhaysan tihiin can ilmasjidi masaajidka ay idinka hor istaageen masaajidka alxaraami xurmada leh an tactaduu inaad xadgudubtaan yayna idinku xambaarin wa tacaawanuu isugu kaalmeeya cala albiri khayrka isugu kaalmeeya wataqwaa cabsida ilaahayna isugu kaalmeeya walaa tacaawanuu ha isugu kaalmaynina cala alidmi dembiga ha isugu kaalmaynina waalcudwaani cadowtinimadana ha isugu kaalmaynina wattaqu llaha ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay weeyaane alla wuxuu leh subxaanahu wa tacaala bilaha xurmada leh inaad xadgudub samaysaan iska ilaaliya bilaha xurmada leh waa bilahee waa bisha lagu magacaabo dulqacda iyo bisha lagu magacaabo dulxija iyo bisha lagu magacaabo muxaram iyo bisha lagu magacaabo rajab afartaa bilood waa alashhuru lxurum weeyaan waxaa la rabaa afartaa bilood si gooniya in loo dhowro oo qofku markuu afartaa bilood ku jiro si gooniya inuu isu ilaaliyaa la rabaa waa bilo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xurmo khaas ah oo gaar ah uu siiyey marka ilaahay wuxuu leeyahay bisha xurmada leh ha ku xadgudbina afartaa mid ka mida bil ka mida ha ku xadgudbina hadyada beytka ilaahay loo wadana iska ilaaliya hadyada la wado ee beytka ilaahay loo wadana ha ku xadgudbina iska dhaaf hadyada inaad ku xadgudubtaane waxan yar ee luqunta loogu xidhay ee calaamada looga dhigay ha ku xadgudbina ha ku xadgudbina lama ogola waxaa kale oo aan la ogolayn in lagu xadgudbo dadka beytka ilaahay u socda xujayda xajka dadka ugu socda ama cumro ugu socda iyagana waxaa la rabaa inaan lagu xadgudbin ilaahay wuxuu leeyahay markaad xalaalowdaan ee xajka aad ka xalaalowdaan ama cumrada aad ka xalaalowdaan ugaadha markaas ilaahay wuxuu leeyahay cadho aad dad u qabtaan inay idinku xadgudbeen darteedna aada ugu cadhaysan tihiin yayna idinku xambaarin inaad idinkuna xadgudubtaan yayna idinku xambaarin culimmadu waxay leeyihiin waxay aayadda sababu nusuulku wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabatu rasuul caama alxudaybiya markay mushrikiintu cumradii iska hortaageen yay dad saxaabada ka mid ah waxay yidhaahdeen inakuna aynu ka hor istaagno beytka ilaahay kuwa u socda say iyaguba inoogu diideen inakuna aan ugu diidno ayadta sababu nusuulkeedaba saas ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabatu rasuul iyagoo cumro u socda beytka ilaahay ugu socda ayay mushrikiintii carbeed ishortaageen oy beytkii ka celiyeen rag saxaabatu rasuul ka mid a xanaaqay markaasaa waxay yidhaahdeen iyagana kuwa beytka u socda annakuna waan u diidaynaa ilaahay baa marka subxaana wa tacaala qur-aankan soo dejiyey barada u fiirso alla wuxuu leeyahay wixii wanaaga wixii khayra wixii alla kacabsi ah isu kaalmaysta laakiin wax dembi iyo cadownimo ah ha isu kaalmaysanina yaa ayuha aladiina dulka aamanuu xaqa rumeeyow laa tuxiluu ha xalaashanina shacaa'ir allaahi shacaa'ira diin illaahi ilaahay diintiisa calaamooyinkeeda ha xalaashanina wala shahra bishana ha xalaashanina shahriga alxaraama xurmada leh walalhadya hadyadana ha xalaashanina walalqalaa'ida
waxa hadiyada luqunta ugu xidhanaha xalaashanina walaa aamina kuwa u qastinaha xalaashanina albayta beytka alxaraama ee xurmada leh yabtaquuna xaal ay dalbayaan fadlan fadli ay dalbayaan fadligaasoo min rabbihim iyaga rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan raalli ahaanshana ay dalbayaan wa idaa xalaltum markay xalaalowdaan fasdaaduu markaa ugaadha walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolo cadho aad u qabtaan maxaad ugu cadhaysan tihiin an saduukum an saduukum inay idinka hor istaageen aada ugu cadhaysan tihiin cani lmasjidi masaajidka xaggiisa masaajidka alxaraami xurmada leh an tactaduu inaad xadgudubtaan iyayna idinku xambaarin walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolo cadho aad u qabtaan an saduukum inay idinka hor istaageenna aada ugu cadhaysan tihiin cani lmasjidina ay idinka hor istaageen masaajidka alxaraami xurmada leh an tactaduu inaad xadgudubtaan yayna idinku xambaarin wa tacaawanuu isugu kaalmeeya cala albiri wanaagga isugu kaalmeeya wataqwaa alla ka cabsigana isugu kaalmeeya walaa tacaawanuu ha isugu kaalmaynina cala alidmi dembiga ha isugu kaalmaynina waalcudwaani cadowtinimadana ha isugu kaalmaynina wataqu llaha ilaahay ka baqa in allaha ilaahay shadiid lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay weeyaane xurimat ilaa maa yutlaa calaykum tii weeyaan xurimad waxaa laga xarimay calaykum dushiina almaytatu baktiga ayaa la idinka xarimay wadamu dhiiggana waa la idinka xarimay wa laxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisana waa la idinka xarimay wamaana waa la idinka xarimay uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi ligayri ismi illaahi ilaahay magiciisa gayrkiis loogu dhawaaqay bihi maaga oo magaca ilaahay magacaan ahayn lagu gowracay walmunkhaniqati midda ciijisantayna waa la idinka xarimay ee guurta la qabtay ee sidaa nafta lagaga qaaday waalmawquudatu midda la ganac gooyeyna waa la idinka xarimay waalmutaradiyatu midda meel dheer ka soo dhacdayna waa la idinka xarimay waannadiixatu midda la hardiyeyna waa la idinka xarimay wamaana waa la idinka xarimay akala sabcu waraaba uu cunay ilaa maa dakaytum waxa aada gowracdeen mooyaane radda u fiirso ilaa maa dakaytum waxay u noqon munkhaniqada iyo mawquudada mutaradiyada nadiixada waxa uu waraabuhu cunay intaasay u noqon mayto waa wax baktiya isaga ma la gowraco dhiigna isaga dee gowrac shaqo kuma leh doofaarna gowrac ku xalaaloobi mahayo wax ilaahay magiciisa waxaan ahayn lagu gowracayna gowrac ku xalaaloobi mahayo waxa gowraca ku xalaaloobi waa midda la ciijiyey midda la ganac gooyey midda meel dheer ka soo haaday midda uu neef kala hardiyey midda uu waraaba cunay oo isagoo nool aad gaadhay ood gowracday waxyaabahaasaa gowraca ku xalaaloobaya allah marka subxaanahu wa tacaala wuxuu ina yidhi maytadu waa bakti la cuni mahayo dhiigguna waa waxaa weeye isaguna waa xaaraan maytadu waa xaaraan dhiigguna waa xaaraan dhiiggaasi waa kee waa dhiigga masfuuxa ah waynu u tegi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo damka oo xaaraantihi waa damka masfuuxa ah laakiin damka fadhiya sida beerka iyo wadnaha iyo kelyaha iyo dhiiggaas fadhiya isagu ma aha xaaraan ma ah waxaa kaloon xaaraan ahayn neefka markii la gowraco ee damka masfuuxa ee aburaynhayaay marka uu baxo damka kale ee ku hadhaya hilbaha isaguna waxaa weeye xaaraan ma aha waxa weeye waa xalaal isagu waa macfo ilaahay baa inoo cafiyey oo dee dhiiggaasi maba ka dhammaan kara hilbaha waxaa kaloo xaaraana doofaarka
ilaahay magiciisa waxaan ahayn wixii lagu gowracayna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraana neefka la ciijiyey gaalada in badan oo ka mid ah waxay ku dhahayaan neefka haddii la gowraco dantii haddii oo bir la mariyo dantii laga lahaaba tagtay oo waxay leeyihiin waxa dhan ee neefka laga rabaaba waa dhiiggan inuu hilibka una ka dhex bixin markaasay neefka ciijinhayaan intay ciijo ku qabtaan ayay baktiinhayaan markay baktiyaan neefka dhiiggii gudaha ayuu ugu noqon hayaa markaa kadib haddii neefka la gowraco dhiig ka iman mahayo idan in badan gaaladu saasay xoolaha ku sameeyaan xadhig bay soo qaadayaan way marjinhayaan neefka uu baktinhayaa kadib bay qashaan cudurrada ugu badan ee la bixin la-yahay waxyaabaha laga qaadaayey waa waxyaabaha ilaahay uu reebay ee ibnu aadamka isticmaalayaan waxyaabaha hadda ay gaaladu leeyihiin waan iktishaafnay waxaa ka mid a doofaarka waxay yidhahdeen hilbihiisa intaa oo cudur baa laga qaadaa hadda ilahi waan iktishaafnay wax walba oo ilaahay uu kaa joojiyey haddaan isticmaasho cudurro aan la bixin karin baad ka qaadaysa soo ma aragti mawquudaduna waa neefka maalan la ganac gooyeyntii wax lagu dhuftay ganac go-ay mutaradiyadu waa neef meel ka soo haaday nadiixadu waa xoolo ishardiyey sacbaa sac hardiyey saasuu ku baktiyey wixii uu waraaba kaa qabsaday ee aadan naf ugu teginna waa xaaraan intaasoo dhan waxa weeye xaaraan wey laakiin munkhaniqada iyo mawquudada mutaradiyada nadiixada waxa uu waraabuhu cunay shantaa haddii aad naf ku gaadho oo aad gowracdo xalaal buu isaga kuu noqon hayaa xurimad waxaa la xarimay calaykum dushiinna waxaa laga xarimay almaytatu baktiga waddamu dhiigga iyo walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaa shayga uhilla la gowracay wamaa shayga uhilla loogu sawdeeyey ligayri illaahi ligayri ismi illaahi ilaahay magiciisa magacaan ahayn loogu sawdeeyey ee lagu dhawaaqay ayaa isaguna xaaraana bihi maaga waalmunkhaniqatu midda ciijisantay iyaduna waxaa weeye waa xaaraan midda cabudhay ee inta xadhig lagaga xidhay ama la qabtayba sidaa intay ku caburtay baktiday iyaduna waxaa weeye waa xaaraan waalmawquudatu midda la ganac gooyeyna xaaraan wey waalmutaradiyatu midda soo dhacday ee meel dheer ka soo dhacdayna xaaraan wey wanadiixatu midda la hardiyey ee neef kale uu hardiyeyna hadduusaa ku baktiya xaaraan wey wamaabaa xaaraana akala sabucu waraaba uu cunay ilaa maa mooyaane e dakaytum aada gowracdeen shanta dambe buu u noqon wamaabaa xaaraama dubixa la gowracay cala nusubi sanamyaalka waxa loo gowracaynaa isaguna waxaa weeye waa xaaraan wax intii sanam loogu taqarubay sanam loo gowracay isaguna waxaa weeye waa xaaraan wa an tastaqsimuu inaad wax ku qaybsataan oo xaajadiinna aada u isticmaashaan bilaslaami leebabka toostoosan inaad xaajadiinna u isticmaashaanna iyaduna waxaa weeye waa xaaraan daalikum kiinaasi fisqun faasiqnimo iyo daacadii ilaahay oo laga baxay weeyaan waxaa xaaraama sharciyan xoolaha asnaamta loo gowrici waa xaaraam iyaguna wax alla wixii sanam loo gowracaayey waa xaaraan waxaa kaloon iyadana la ogolaynoo xaaraama aslaamta in wax lagu qaybsado qaybta maxaa laga wadaa qofku nasiibkiisa inuu aslaam ku soo saaro oo qismiga hadda waxaa laga wadaa nasiibka uu leeyahay inuu ku soo saaro iyadana waxaa weeye lama ogola oo waxay samayn jireen xilligii jaahiliga aslaam ereygan waxaa weeye wixii toosan leeb aslaamtu waa shayga toosan baa loo isticmaali jiray marka waxay samayn jireen 3 leeb oo toosan oo si fiican loo habeeyey ayay soo qaadi jireen mid waxay ku qoreen nacam ayay ku qoreen
midna waxay ku qoreen laa ama waxay ku qorayeen amaranii rabbii nahaanii rabbii midna waxba ku qori mahayaan qofku markuu damco inuu safar aado saddexdii meel bay ku jiraan mid ka mid a ayuu la soo baxayaa hadduu u soo baxo amaranii rabbii wuu safrayaa hadduu u soo baxo nahaanii rabbii ma safrayo hadduu u soo baxo kii una waxba ku qorayna wuu ku celinayaa markaan u ku celin aslaamtaas yay isticmaali jireen innaka waxaa weeye wax kaloo arrin ka bedelan kana fiican buu ilaahay inoo jideeyey oo ah istikhaara markii aad rabto inaad hawl aad qabsato waa 2 ragcadood baa tukan ducadii ducaaul istikhaaraad akhrinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu qalbigaaga ku waasiciyo ayaa khayrka oo marka taasaad samaynaysa taasaad yeelaysa maalan waxaad damacday maanta inaad safarto istikhaara ayaad samayn marka dambe waxa qalbigaagu uu jeclaado ee kuu soo baxaa khayr kuu ah inaad joogto hadday kuu soo baxdo oo qalbigaagu uu ku fiicnaado inaad joogto waad iska joogi haddii kale waad baxaysaa taasuu ilaahay subxaana wa tacaala innaka inoo jideeyey oo waxyaabaha aynu rabno oo xadigeenna iyo nasiibkeenna waxa aynu kula soo baxaynaayo waa istikhaaradaas masalan waxaad damacday inaad gabadh guursataa damacday waad istikhaarayn 2 ragcadood baa tukan ducaaul istikhaaraad akhrin waxaad dhahaysaa ilaahayow hadday arrintaasi khayr ii tahay waafaji haddayna khayr ii ahayna ilaahayow iga leexi khalaas marka dambe qalbigaagu wuxuu ku dhiib noqon hawshii inaad horu wado khayr bay kuu tahay ama qalbigaagii wuxuu ku dhiib noqday inaad iska dayso khayr bay kuu tahay iska daa markaas waa nooca wey haddii de intaad jiifato ayba ku soo hor istaagtana sida in badan aad arkayso iyadana waxaa weeye waa khayr kala wey nacam wamaa baa la idinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi sanamyaalka dushooda lagu gowracay wa an tastaqsimuu inaad wax ku qaybsataanna waa la idinka xarimay bilaslaami leebabka daalikum kiinaasi fisqun daacad ka bixid weeye alyawma maanta ya-isa way quusteen aladiina waxa kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinay ka quusteen ee falaa takhshawhum gaalada ha ka cabsanina wakhshawnii aniga iga cabsada alyawma maantaan akmaltu kamilay lakum idinka diinakum diintiinnii maantaan idinka miray wa atmamtu calaykum waxaan dushiina ku taam yeelay nicmatii nicmadayda waradiitu waan raadi noqday lakum idinka alislaama islaamkaan idinka raadi noqday diinan diin ahaan islaamkaan idinka raadi noqday ee faman idura qofkii la dhibaato geliyo fii makhmasatin gaajo fiigeedna la dhibaato geliyo gayra mutajaanifin mid leexan gayrkii xaal uu yahay qofku liithmin dembi fa ina allaha ilaahay gafuurun waa alla dembi dhaafid badan raxiimun oo weliba naxariista ilaahay baa wuxuu leeyahay maanta yay gaaladu diintiinni ka quusteen len diintii baa la dhammaystiray ilaahay wuxuu yidhi iyaga ha ka cabsanina aniga cabsada mar hadduu ilaahay diintiinni dhammaystiray muslimiin fara badan hadda ay joogaan diintii si xoog badan loo galay waxaa weeye gaaladii diintiina way ka quusteene aniga cabsidayda ku dadaalu alla leeyahay subxaana wa tacaala diintiinnina waan idinka miray nicmadaydiina waan idinku taam yeelay buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ee qofkii dhibaata ay qabato gaajaa qabatay waana musaafir maalan safarka uu ku jiraana waa safar oo aan dembi ku sugnayn gayra mutajaanifin liithmin anigi qof musaafira oo safarkiisu uu macsiyo yahay ruqsooyinka ilaahay shaqo kuma leh mana qaadan karo hadduu bakti arko ma cuni karo hadduu doofaar arko ma cuni karo laakiin qofku marka uu safarkiisu safar nadiifa uu yahay hadday gaaja qabato
wixii xaaraanta ka ahaa buu naftiisa ku ceshanayaa oo maalan hadduu bakti arko gaajada wuu iskaga reebi doofaar hadduu arko intuu diloodo ayuu gaajada iskaga reebayaa barada u fiirso waa daruura alyawma maanta ya-isa way quusteen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinay ka quusteen falaa takshawhum gaalada ha ka cabsanina wakhshawnii aniga iga cabsada alyawma maanta ayaan akmaltu kamilay lakum idinka diinakum diintiinaan idin kamilay len waxay ayaddu soo degtay maalin jumco ah yawmu carafa bacda alcasr bay soo degtay aayaddan baada u fiirso maalin ay carafa iyo jumca iswaafaqeen weliba bacda alcasr fi xajati alwadaac ayay aayaddu soo degtay ilaahay marka wuxuu leeyahay alyawma maantaan akmaltu kamilay lakum idinka diinakum diintiina idin kamilay oo wa atmamtu aan ku taam yeelay calaykum idinka dushiina nicmatii nicmadaydana aan ku taam yeelay nicmadayda oo ah nasriga iyo qahru lkufaar ilaahay subxaana wa tacaala muslimiintii nasri wuu siiyey gaaladiina ilaahay wuu qahray waa nicmadu waa middaa weeyaan alyawma maanta ayaan akmaltu kamilay lakum idinka diinakum diintiina idin kamilay oo wa atmamtu aan ku taam yeelay calaykum dushiina nicmatii aniga nicmadayda oo ah inaan idin gargaaray wa raditu waan raalli noqday lakum idinka alislaama diinan diin kaluu ilaahay uu raalli ka yahay ma jiro aslan diinta ilaahay uu raalliga inooga noqday waa diinta islaamka bes faman idura qofkii la dhibaato geliyo fii makhmasatin gaajo fiigeedna la dhibaato geliyo gayra mutajaanifin mid u iilan oo u leexan gayrkiis xaal uu yahay liithmin dembi u iilan fa ina allaha ilaahay gafuurun waa alla dembi dhaaf badan raxiimun oo weliba naxariista yas'aluunaka nabi muxamedow waxay dadku ku weydiinayaan maadaa uxilla waxa loo xalaaleeyey lahum iyaga waxa loo xalaaleeyey ee xalaasha u ah ayay ku weydiinhayaan qul waxaad dhahdaa nabi muxamedow uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka adayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan ayaa laydin xalaaleeyey wamaa shayna waa la idin xalaaleeyey callamtum aada wax barteen oo min aljawaarixi waxyaabaha wax dhaawaca ah mukallibiina xaal aad edbiseen oo aad tababarteen tucallimuunahunna xaal aad baraysaan mimaa shayga callamakum ullahu ilaahay wuu idin baray ee fakuluu cuna mimaa amsakna waxa ay qabteen xaggiisa cuna calaykum dushiina ay idin qabteen wadkuruu xusa isma allaahi magaca ilaahayna xusa calayhi dushiisa ku xusa oo markaad diraysaan bismi illaahi dhaha wattaqu llaha ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa weeyaane alla wuxuu leeyahay nabi muxamedow waxay mu'miniintu ku weydiinhayaan saxaabatu rasuul waxay ku weydiinhayaan waxa xalaasha u ah waxaad dhahdaa waxaa la idin xalaaleeyey waxyaabaha dayibaadka ah waxaa kaloo la idin xalaaleeyey waxyaabaha wax dhaawaca waxa aad tababarteen inaad ku ugaarataan anigi wamaa callamtum wasayda maa callamtum wey mudaaf baa meesha ka go-an waxa aad wax barteen inaad ku ugaarataanna waa la idin xalaaleeyey oo waxyaabaha wax dhaawaca maxaa ka mid a aygiibaa ka mid a haram caddiibaa ka mid a haddii wax la baro waxyaabahan shimbirahan waaweyn ee saqarka iyo yacni shaahiinka iyo waxyaabaha shimbirahan waaweyn inaku aada uma naqaanee laakiin dee carabta oo kale
waxyaabaha ay isticmaalaan waxyaabaha ugu badan bay kamid ahaayeen oo ay ku ugaadhaan waana waxyaabaha haddii la tababaro si fiican u tababaranaya meel beri aan joogay nin baadiye ka yimid wuxuu keensaday wuxuu maalin wuxuu yimid isagoo wata bahalkan aynu dhahno galayrka oo yar oo dhalahoo markaa uun dee uu jebiyey ayuu soo qabsaday wadaad dukaan lahaabaa ka gatay meeshii buu ku tababaray marka uu wadaadku dukaanka ka tago iyagaa waagi dambe waardiyeyn jiray dariishada ayay fadhiisanayaan qof kasta oo ayna garanaynin dukaankaa ma geli karo aslan halkaasay fadhiyaan inta uu ka maqan yahay salaadihii uu ku maqan yahay meeshaasay fadhinayaan qof ayna aqoonin markii uu yimaado way ku haadayaan qofku uu carariba laba si fiican markii dambe kore bay ahaayeen ninka dukaanka iskale markuu yimaado ama ilmihiisa iyo reerkiisu ay yimaadaanna way soo dhaweynayaan oo intay baalasha kala bixiyaan yay jiq 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 dhahayaan si fiican bay soo dhaweynayaan laakiin qof uusan aqoonin hadduu meeshaa soo istaago waxdariis ayaa kacaya waa marka nooca weeye waa wax haddii la tababaro si fiican u tababaranaya wuxuu marka ilaahay leeyahay marka aad diraysaan bisinka qabta maalan ay baad ku ugaaranaysaa marka aad diri ayaa waxaad dhahaysaa bismillaah baad dhahaysaa neefka markuu dilo hadday neefku nafta ka baxdo khalaas waa ku xalaal neefkaas bakti kaama aha marka aad bahalkan aboodiga marka aad dirayso bismillaahi baad dhahaysaa neefka markuu qabto isagoo neefkii oo mayda haddaad u tagto waa ku xalaal wey yas'aluunaka nabi muxamedow waxay ku weydiinhayaan maadaa shaygeebaa uxilla xalaal u ah lahum iyaga saasay ku weydiinhayaan qul waxaad dhahdaa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey addayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan wamaa wasayda maa shay ku ugaarashadiisana waa la idiin xalaaleeyey callamtum aad wax barteen oo min aljawaarixi waxyaabaha wax dhaawaca ka ahaaday mukallibiina xaal aad edbiseen ood edab u yeesheen tucallimuuna xaal aad baraysaan hunna iyaga mimaa shayga callamakum ullaahu ilaahay uu idin baray oo ilaahay idinka waxbuu idin baray tarbiyaad buu ilaahay idin siiyey iyagana sidiinoo kalaad ka dhigaysaan oo waad tababaraysaan fakuluu cuna mimaa shayga xaggiisa cuna amsagna ay qabteen calaykum idinka ay idiin qabteen hadday naftooda u qabsadeen ma cunaysid waa bakti neefkaasi maxaa lagu garan marka aygan aad dirtay inuu adiga neefka kuu qabtay iyo isagu inuu qabsaday maxaa lagu kala garan waxaa lagu kala garan haddii aad u tagto isagoo neefkii cunaya haddaad u tagto isagaa qabsaday adiga muna kuu qabanin tarbiyaad markaa u celinaysaa tababar baad u celin haddii aad u tagto isaga oo meeshuu qabtay uun haya oon dhinac kale u dhaafin haddaad u tagtana aduu kuu qabtay markaas saasaa lagu kala garanayaa wadkuruu xusa isma allaahi magaca ilaahay xusa calayhi dushiisa ku xusa wataqu llaha ilaahay ka baqa in allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabtiisu mida degdegaysa weeye alyawma maanta yaa uxilla la xalaaleeye lakum idinka addayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan maanta ayaa la idin xalaaleeyey dadka mu'miniinta ahow alyawma maanta yaa uxilla la xalaaleeyey lakum idinka addayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan oo naftu ayna diidaynin ayaa la idin xalaaleeyey bal masalada u fiirso shayga hadduu xalaalnimadiisa nas ku soo arooray waa xalaal hadduu xaaraamnimadiisa nas ku soo aroorayna waa xaaraam wixii aan labada ahayn ee xaaraamnimadiisa uusan nas caddaynin xalaalnimadiisana uusan nas caddaynin wixii dayiba oo naftu ay wanaagsanhaysa ayaa xalaala wixii naftu ayna wanaagsanhayninna waa xaaraan wey waa khabiis galada u fiirso alyawma maanta ayaa uxilla la xalaaleeyey lakum idinka addayibaatu waxyaabaha wanaagsan wa dacaamu ladiina kuwii dacaamkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyeyna xillun xalaal buu u yahay lakum idinka wa dacaamukum idinka dacaamkiinuna
xillun xalaal buu u yahay lahum iyaga ahlu kitaabka dacaamkooda waa la cunayaa waxa ay gowraceenna waxa weeye waa xalaal wey waa xalaal innaka dacaamkeennuna xalaal buu u yahay wa dacaamu aladiina kuwa dacaamkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal buu idin yahay wa dacaamukum idinka dacaamkiinuna xillun lahum iyaga xalaal buu u yahay waalmuxsanaatu kuwa xorta ah ee cafiifaadka ah ayaa xalaal ah oo xalaal idin ah oo min almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah xaggooda ka ahaaday waalmuxsanaatu kuwa la ilaaliyey ee cafiifaadka ah xortana ana xalaal bay idin yihiin oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin kitaabka la siiyey idaa aataytumuuhunna muxsanaadka markaad siisaan ujuurahunna ajriyaalkooda markaad siisaan muxsiniina xaal aad tihiin kuwa is ilaalin oo guurka isku ilaalin hayra musaafixiina kuwa biyo iska daadin hayrkood xaal aad tihiin walaa muttakhidii akhdaanin saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya hayrkoodna aad tihiin waman yakfur qofkii gaalooba biliimaani iimaanka ku gaalooba faqad xabida camaluhu camalkiisu wuu hoobtay wa huwa isaguna fi laakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaare xaggoodu ka ahanaya bal masalada u fiirso alla wuxuu lehy subxaana wa tacaala gabdhaha muxsanaadka ah waxaa muxsanaadka hadda laga wadaa gabdhaha xorta ah ee cafiifaadka ah oo haddana iimaan kale waa idin xalaal waad guursan kartaan gabdhaha xorta ah ee cafiifaadka ah oo ahlu kitaabka ana waad guursan kartaan goormaad guursanaysaan marka aad meherkooda siisaan idinkoo weliba muxsiniina muxsiniin maxaa laga wadaa guurkan idinkoo isku ilaalin oo aan ahayn kuwa biyo iska daadinhaya ilaan qofku marka uu zinaysanhayo ee uu rabo gabarh inuu ka zinaysto ujeedadiisu waa inuu biyaha iska daadiya un wax dana oo ka dambaysaay ma jirto walaa mutakhidii akhdaanina maxaa laga wadaa waa saaxiib hoosaad gabadh aad hoos ula saaxiibtay wey xilligii jaahiliga laba arrimood bay zinadu kala ahayd midi waxay ahayd mid oo macruufa oo naaguhu intay guryo kiraystaan yay calan ka taagan jireen markaasay calanka waxay ku qoran jireen in meesha gabadh jidhkeeda ka shaqaysata ay degan tahay waxaa weeye waa hayra musaafixiin weeye kuwaas mutakhidii akhdaanina waa zinada la siraysanhayee hoos loo isticmaalayo labadaasaa xilligii jaahiliga kala jiri jiray hadda qudhigeeda caalamka way ka jiraan caalamka way ka jiraan bal xilligii hore ee dowladdii hore waddankeenna ay ka jirtay naago gurya u kiraysan yihiin oo macruuf ah oo shatile oo canshuur laga qaado oo waxa un ka shaqaystaa jiri jiray soo ma jiri jirin way jiri jireen way jiri jireen mutakhidii akhdaanina waa labada qof ee hoos intay u heshiiyeen bahasha qarsanhaya labada kuwaa wey waa labadaa wey labadaasaa jiray labadiiba marka iska ilaaliyaa layna leeyahay waalmuxsanaatu gabdhaha xortaa ee la ilaaliyey baa la idin xalaaleeyey oo min almu'minaati mu'minaadka xaggooda ka ahaaday waalmuxsanaatu kuwa la ilaaliyey ee xorta ah baa la idin xalaaleeyey oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin kitaabka la siiyey idaa aataytumuuhunna haweenka markaad siisaan ujuurahunna ajriyaalkooda markaad siisaan muxsiniina xaal aatiin kuwa isdhowri oo guurka isku dhowraya hayra musaafixiina kuwa biyo iska daadin hayrkood xaal aad tihiin walaa mutakhidii akhdaanin saaxiibo hoose kuwa samaystay hayrkoodna xaal aad tihiin waman yakfur biliimaani iimaanka qofkii ku gaalooba faqad xabida camaluhu camalkiisu wuu hoobtay wa huwa isaguna fi laakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaare xaggoodu ka ahaanaya yaa ayuha aladiina dulka aamanuu xaqa rumeeyow idaa qumtum ila asalaati salaada markaad isu taagtaan faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi suxullada laga gaadho wamsaxuu masaxa
biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum lugihiinana dhaqa wa aydiikum tay ku cadfan tahay wa arjulakum lugihiinana dhaqa ilal kacbayni aanqawyada laga gaadho wa in kuntum haddii aad tihiin junuban kuwa janaabo qaba fadaharuu qabaysta oo idinkoon qabaysanin salaad ha tukanina wa in kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa jiran oo aan qabaysan karin aw amase calaa safarin safar aad ku sugan tihiin ood biyo weydaan aw amase jaa uu yimaado axadun axad oo minkum xaggiina ka ahaaday min alghaa'idi uu ka yimaado aw amase laamastumu nisaaa haweenka aad jimaacdaan oo falam tajiduu maa'an biyo aydaan helin fatayamamuu ku gebagabaysta saciidan caro saciidkaasoo dayiban wanaagsan famsaxuu saciidka ku masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiina ku masaxa wa aydiikum gacmihiina ku masaxa minhu saciidka xaggiisa gacmihiina iyo wejiyaalkiina ku masaxa maa yuriidu llaahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax culays ah walaakin yuriidu ilaahay wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro oo xumaan uu idinka dahiro iyo waliyutima inuu taam yeelo nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina uu ku taam yeelo lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna ilahay inaad ku shukrudaane aayadda macnaha horeynu u soo marnay macnaheeda waynu ka soo hadalnay waynu ka soconaynaa wadkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiina uu u nicmeeyey wa miithaaqahu ilaahay ballankiisii dhaarta lagu adkeeyeyna xusuusta alladii kaasoo waafaqakum alla uu idinkula ballamay bihi maaga id wakti qultum aad dhahdeen samicnaa waan maqalay nabiyow hadalkaaga waan maqalay wa adacnaa amarkaagana waan adeecnay wataqu llaaha ilaahay ka baqa in allaha ilaahay caliimun mid ku cilmi badan weeyaan bidaati suduuri laabaha wax u saaxiibkeh alla wuxuu leeyahay nicmada aan idiin nicmeeyey xusuusta oo maxay tahay waa nicmatu lhidaaya lilislaam nicmada ka weyne ilahay uu ku sin lahaa maxay tahay subxana wa tacaala hadduu ilaahay uu ku hanuuniyey oo islaamka ilaahay uu kugu hanuuniyey acdam nicma oo ilaahay uu ku sin lahaa wey subxaana wa tacaala alla wuxuu leeyahay waxaad xusuusataan ilaahay ballankiisa xusuusta oo alla aad kula ballanteen anigii ballanka ilaahay anigii amarka uu ilaahay idin siiyey biwaasidati rasuulihi uu idinku siiyeyna xusuusta marka aad nebi muxamed anigii ballanka ilaahay aad la gasheen oo biwaasidati rasuul aad kuna gasheen xusuusta oo waa ballankee waa baycada nebi muxamed aad la gasheen saxaabada rasuul haddii aad tihiin taa xusuusta waxaa weeye waxay kula ballameen saxaabatu rasuul nebi muxamed waxay kula ballameen inay garabkiisa ahaan hayaan oo ay hortiisa ahaan hayaan oo ayna gadaashiisa ahaan haynin ayay kula ballameen nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam weliba nabiga waxay yidhaahdeen ku dhihi mayno sida ay yahuudi nabi muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun nebi muxamedow ku dhihi mayna yidhaahdeen ee waxaan ku leenahay waan dagaalamaynaa annaku macaaga ayaan ka dagaalamaynaa saasaan ku leenahay bay ku dhahdeen saxaabatu rasuul markay nebi moxamed baycada la geliyeen calayhi salaatu wasalaam tiibuu ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala wadkuruu xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiina uu nicmeeyey wa miithaaqahu ilaahay ballankiisiina xusuusta alladii kaasoo waafaqakum alla uu idinkula ballamay bihi maaga id wakti qultum aad dhahdeen samicnaa nebi muxamedow waan ku maqalay wa adacnaa waanan ku adeecnay wataqu llaha ilaahay ka baqa in allaha ilaahay caliimun mid ku cilmi badan weeye bidaati suduuri laabaha wax u saaxiibkee yaa ayuha aladiina dulka aamanuu xaqa rumeeyow kunuu ahaadaa qawaamiina kuwa taagni badan ahaada yaa ayuha aladiina duulka aamanuu xaqa rumeeyeyow
كونوا هذا قوامين كوا قمد بدن أو تاجنان بدن لله إلهي درتنا أو تاجنان بدن شهداء كوا مخراتيك فراء هذا بالقسط ولبس عدالة أي كجرتنا مخراتيك كفرا ولا يجرمنكم يونا إذن كحنبار شنآن قوم قرأ على عضو قبطان على ألا تعدلوا إن إذن عدالة سمين يين إذن كحنبار اعدلوا عدالة سمية هو عدل جاسا أقرب الدوام بدن للتقوى الله كعبسك واتقوا الله إلهي كبقى إن الله إلهي خبير وحوك علم ليهي بما شيء تعملون هذا عمل فليسان يا سمين هيسان أي إلهي كعلم ليهي برد أوفرس الله وحليهي ضدك مؤمنين تهو وهذا هاتان قوة تاجني بدن ومحل له تاجنان محل له تاجني بدنان هيا وهو البقو عاد إلهي كرال بلانتين قوة تاجني بدن هذا إلهي درتيس وهذا هاتان قوة مخراتيك فوري عدالة سي أي كجتنا كفريا ولا قال مرمان إلهي وحليهي على عاد قلاء قبطان يين إذن كو حنبارين إن إذن عدالة سمينين هداد ربطان قلاء على إسنادا لكن عدالة سمية عدالة سمية عدالة داسا أولوان بدن إلهي لك بقو يا أيها الذين دلك آمنوا حق الرميو كونوا هذا قوامين كوة تاجنب بدن ووحى إلهي آد كرب بلانتين أتاجنب بدن لله إلهي درتيسنا أتاجنب بدن شهداء كوا مخراتيك فري هذا بالقسط عدالة كفري ولا يجرمنكم يين إذن كحنبار شنآن قوم قرأ على أعضو قبطان على ألا تعدلوا إن إذن عدالة سمين يين إذن كحنبار اعدلوا عدالة سمية هو عدل أيا أقرب الدوام بدن للتقوى الله كعبسك الدوام بدن واتقوا الله إلهي كبقى إن الله إلهي خبير مد حق أقال أويه بما شيء تعملون عصمين هيسان الله وحق بلن قاضي الذين كوا آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماشا وناكسا عمل فلي لهم إياغا إني أهاتيب إلهي بلن قاضي مغفرة دبن ضعف يو أجر كاسو عظيم وين والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بآياتنا آيات كنغا نبينيي أولئك كواسي أصحاب الجحيم جحيم أصحاب تذويا نعوذ بالله والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بينيي بآياتنا آيات كنغا نبينيي آيات كنغا أنكسو دجين الرسوش بينيي أولئك كواسي أصحاب الجحيم جحيم أصحاب تذويا يا أيها الذين دلك آمنوا حق الرميو اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي نعمة ديس حصوصتا عليكم دشينا ونعميي إذ وقتنا وإذين نعميي هم أي هميين أو أي دونين قوم قالوا أن يبسطوا إني تاغان إليكم حقين أي تاغان أيديهم قعمه هذا وفكف الله ريبي أيديهم قعمه هذا عنكم حقين أو كريبي واتقوا الله إلهي كبقى وعلى الله إلهي فليتوكلها تلسارتين المؤمنون ضدك مؤمنين إلهي تلسارتين آيات وحي لهي سبب النزول بي لهي سبب النزول كآيات وحوءها قولدي لقوم مقعابي جرهبان ونضير أيام ماني وحي قوان صدي النبي محمد أو ميل فرديا إنay dhagax way dusha ay kaga soo ridaan oo dhagaxaasi nabiga uu dilo ayay go'aansadeen way ku tashadeen saasay ku tashadeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu iska fadhiyay iyaguna waxay dabarayeen inay nabiga isagoo meesha fadhiya dhagax weyn ay dusha kaga soo ridaan malakul jibriil baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yiri ka kacmeesh harufiis ما قفوا إلهي سبحانه وتعالى وحا دعي إيا وحا لدبري إيا آدمه سمسكينك وحا ودبري قفوا مرول بإلهي أخبارته وصينها يوم ما يكي إلهي كران كمين الكران ملك الجريب وحول نبي عماش اسكاك عليه الصلاة والسلام أرين تاسا جرتي إسلام مركي بعدنا عيدنا سودكتي
وإلهي سودجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين دلك آمنوا حق رمييو اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي النعمة دي حصوصتا عليكم دشنا ونعمي وليبا مركا النبي محمد كلي اسمها هينه رق بدن أو صحابة رسول الله ماشى النبي قال لفديي مركا النبي إيا مع الصحابة إن دغحيالكم كدلان أيغو عن صدين يا أيها الذين دلك آمنوا حق رمييو اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي النعمة دي حصوصتا عليكم دشنا ونعمي إذ وقتنا ودشنا ونعمي هم قوم قل أي هميين أو أي دونين أن يبسطوا إلي سوتاغان إليكم حقين أيديهم قعمه هذا أي سوتاغان أو أي وحيد ييران أو فكف الله أو قبتي أيديهم قعمه هذا أو قبتي عنكم حقين أو كقبتي واتقوا الله إلهي كبقى وعلى الله إلهي أون فليتوكلها تلسارتين المؤمنون ضدك إيمانك لي إلهي أون هتلسارتين إلهي قفكي تلسارتا مرنا مهوغيو ومن يتوكل على الله فهو حسبه مرة قفكاسي مهوغيو الله أعلم